walaalayaal khudbadeena waxaynu iska wacyi gelinaynaa cudurka loo yaqaano duulul amal wal istimraar fiih yididiiladoo la dheeraysto la ilaawo aakhiro iyo safarka aakhiro loo galayo khudbadu marna waa wacyi gelin marna waa waano wixii jirana in la isu sheego waxa soo socdana in la isku baraarujiyo asalkeeduna waa mawcidada iyo waanada iyo inaynaan ilaawin geerida aakhiro horjoogsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan la dafiri karaynin casrigan aynu ku jirnaa inuu ka sii daran yahay cusuurtii hore ama qarniyadii hore oo casri aada loogu dadaalay adduunyada inuu yahay oo loo samaystay agab badan oo loo adeegsado sidii iyada loo qabqaban lahaa waxa tiknoolajiyada la yidhaahdo ama horumarkan adduunyada casriga ah laba arrimood ayaa uu ka faa'iido yahay bay yidhaha marka lasoo ururiyo mide waxa weeye wakhtigii in la marxiyo lasoo koobo oo wax wakhti badan kaa qaadan lahaa wakhtigiisa aada soo yaraysa ayaa ama kaa qaadan lahaa saacada lagu soo ururiyo ama ka yar oo meeshaad telefoon u dirayso dee wakhtigii hore waxaa loo dirayay qof socdo ayaama lugeeya ama sanado faa'iidada labaad ee lala doonayaa waxa weeye in kharashka lagu yareeyo oo meeshii shidaal iyo sahay iyo wax badan kaa qaadan lahayd dee isgaadhsiinta maqalkii iyo muuqaalkaabaa la isticmaalayaa oo kharashkii lagu soo ururinayo laakiin waxaa dhab ah in wakhtigiina sii adkaaday kharashkiina sii adkaaday waayo nuqsaanta adduunyaday ka mid tahay wax waloo dhib lihiba wax waloo dheef lihiba inay dhibina barbar socoto waxaa markaa xusid mudan qofka bani aadamka ahi ilaahay baa ku abuuray amalkii iyo yididiilada inuu wax ku yididiisho oo mustaqbalkiisa uu ka fikiro wax saxan weeye hadday tahay qof iyo hadday tahay ummadba laakiin midhka madmuumka ah ee la eedeeya waxa weeye qofku intuu taa isku ilaawo inuu safarkii aakhiro iyo horjoogsiga ilaahay ilaawo subxaanahu wa tacaala waxaa la doonayaa wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk ninkii qaaruun ee adduunyada u waashay markii uu afka taagaya niman culimaa baa waaniyo waxay idhaahdeen deeqadan ilaahay uu ku siiyey adduunyada dhexdeeda aakhiro ku raadso si aad ajri ugu hesho iska shaqaysa adduunyada aakhirana u diyaargarow waxaa xusid mudan oo qur-aanku ina barayaa dadka adduunyadan isku ilaaway aakhiro ilaaway arrinka ugu horeeya xusuusanayaan marka ay sii dhimanayaan iyo marka aakhiro la tagaba waa wakhtigii ay ka faa'iideyn waayeen adduunyadii ay aakhiro uga soo sahay qaadan waayeen ilaahay baa wuxuu uhi rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin inay islaami lahaayeenoo adduunkii fursaddii ay ka faa'iidaysan lahaayeen bay jeclaan lahaayeen dadkii aan adduunkii soo islaamin ee soo sahay qaadan qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu waxay leeyihin ilaahay fursaddii way dhaaftae bal adduunkii igu yaro celi ayaama aan soo sahay qaato ilaahayna wuu jawaaba wuxu uhi awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaa'akum nnadiir faduuquu famaa lilظaalimiina min nasiir jaaniskaasi uu idin dhaafo la soo celin maayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa ummadda ciddii ugu weynayd ee ku waaninaysa waxa mustaqbalka u soo socda ay ku badbaadi karayaan tusaalayaal buu siin jiray dadku si ay wax u wada fahmaan ila dadku isku wada cilmina maaha isku wada caqlina maaha marka siduu qur-aankuba tusaalaha u isticmaalo nebiguna tusaalayaal buu bixin jiray maalin maalmaha ka mida baa wuxuu jeexay intuu ul qaatay baa asxaabta hortooda waxa uu jeexay khad weyn oo murabbac ah oo afar gees ahoo soo xidhan kolkaasuu khad dheerna sidaa uga dhex tallaabiyey markaa wuxuu ihi khadkaa dheere aragteen waa amalkii insaanka iyo yididiiladiisii sanadkan waxaa qabo 5 sane soo socdana waxaa 10 sano waxaa kadibna ciyaalku ha ku bedelaan saa wax u bartaan xoolaha ha yeeshaan
ilaa 100 sano sii taxan yahay khadkan soo afjarayna waaba geeridiisiiba oo qofka waxaan oo barnaamij iyo waxaan isdhex wadaa ayaama kadib baabu dhimanaya la soo afjaraya arrinkiisaba markaa muuqaalka insaanku sidaas uu ka dhigan yahay ka diyaar garooba buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo iyaduna aad u sii cajiib ah oo siraha uu nabigu inoo sheegay inuu iska arkayna nafteenaba markaynu eegno waxa ka mid ah inuu qofka bani aadamkahay kol kastuu sii weynaado da-ay u korodhaba waxa sii kordhaya laba arrimood inuu cimrina jeclaado cuudkiiyo xoolahana jeclaado rasuulku waxa uu leeyahay laa yazaalu qalbu lkabiiri shaaban fi ithnatayni fii xubi dunya wa tuuli lamal qofku markuu weynaadaba labaa daa yaraada jidhkiisii wuu sii weynaanayaa laakiin laba arrimood way daa yaraanayaan inuu adduunyadana jeclaado cimriga dheerna jeclaado iyo wakhtiga inuu sii joogo ka reer magaalku ka xanaaqaya marka la yidhaahdo intaasaad jirta marka la yidhaahdo waad weynaatayna wuu xanaaqaya marka la yidhaahdo waa daa yaraatayna wuu ku farxayaa waa dadku kaftan bay moodaan laakiin waa wax jira xubu dunya iyadana adduunyadana inuu jeclaado labadaa arrimood gabowgay la socdaan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam muxuu jeclaanayaa waabu og yahayba inuu kasii dhaadhacayo uu weydaaranayo sidaa daraaddeed rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta ayaa la joogay oo ummadda iyagu waxyiga iyo waanada usoo qaadayo tusaale inoo ahaa asxaabtii adduunyaduba cusbayda da-da yaraa nin ka mid ah oo cabdillaahi ibnu cumar ibnu khadaab ayaa maalin maalmaha ka mida buu garabka taabtuu garabka qabtay macnaheedu waxa weeyaan aada buu usoo jeedinayaa tusaaluhu hadalkuu nebigu u dhiibay waxa weeye innaguna aynu la wadaagno kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil cabdillaahi oo adduunyada way u cusubtay imaka waa inan yar haddana nebigu waxa uu leeyay markaad adduunka dhex socoto waxa aad isu niyootaa inaad tahay qof qariib ah oo qariib waa la yaqaanaa waa nin meel soo maray aan deegaan u ahayn ama nin tubku joogahoo dariiq maraya un sidaasuun isu aamin waana sida dhabtaha ay tahay wey waayo waxaad ka soo qaadaa dee cumruqaalibka ummaddan nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam inta udhexaysa 60 ilaa 70 inuu yahay waa imise ayaamood waa imise saacado haddaad xisaabin karaysaa waxaba cimriga ummadahana dee qaar baa kaba sii gaabanbo innagoo kale marka la isku celceliyey cimriga soomaalida 48 iyo 45 baa lagu tilmaamaa mawsuucaat lbuldaan macluumaadka adduunka marka laga warbixinayo oo marka laga dhimashadooda iyo dagaaladooda iyo cuduradooda cumrulqaalibkii waxaabuu noqday wax konton ka yarba hadalkaa sidaynu inagu u qaadanayna umuu qaadan cabdillaahi ibnu cumar inagu wacdi iyo weydba habeen baa lagu waabariistaa baynu idhaahnaa oo dhegtuma laga maqlaa waa la dhaafaa laakiin uu dhaqan geliyey isagu markaa maqaalad buu lahaayo idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa wa idaa amsayta falaa tantadir sabaax wuxuu odhan jiray cabdillaahi kol haddii waagu kuu baryo gabaldhaca ha sugi gabalku hadduu kuu dhacana waaga ha sugi sidaasay asxaabtu ridwaanullaahi calayhim hadalka nebiga ugu camal falayaan calayhi salaatu wasalaam aimada aada mowduucan suluuga iyo akhlaaqiyaadka iyo wacdiga wax uga qori jiray waxaa ka mid ahaa manaajicda badan kule ibnuqayim raximahu llah waxau ihi maa madaa min addunya axlaam wamaa baqiya minha amaani waalwaqtu daa'icun baynahuma adduunyada wixii hore tegay waa riya buuhi waa riyo waa dhab bal adigu riyadii caawo dib ugu noqo waxbaad yaro xusuusanaysaa waxna dhinac baad haysaa waxna way ku yaro dhaafeen xusuus bay ku dambaynaysa bal waxaad hadda dib u eegtaa cimrigii horeed soo jirtay 10 sano 10 sano 10 sano 10 sano adigu dib u celi maskaxda cajaladda maskaxda in yarunbaad ka xusuusanaysa faylkii iyo malafkii ay taariikhdaasi lahayd wax yaryarunbaad ka xusuusanaysaa sida riyadaba ina yaryar looga xusuusto marka cimriga intaa ku dhaaftay waxaad u niyootaa buuhi wax riyaa inuu yahay waxa soo socdana maba hubtida waa amaani iyaduna waa yididiilo waktigina labadaa dhexdooda ku dhammaaday
aimadu in fara badan bay ka hadli jireen arrintan la xidhiidha in laga digo dadka lagu baraarujiyo jaaniska ay haystaan inay ka faa'iidaystaan xikmadda loo abuurayna ay fahmaan oo intaa yare qurbada ay ku jiraan ayaamaha transitka iyo safarka ay yihiin inaanay sahayda rasmiga ilaawin marka waxay lahaayeen maqaalado iyo xigmado qaaliya dadkii saalixiinta sirta adduunyada fahmay nin ka mid ah wuxuu lahaa cajibtu man yaxzinu calaa nuqsaani maalihi walaa yaxzinu calaa cumri wacajibtu min amri dunya muwaliyatan canhu waalaakhiratu muqbilat calayhi yashtagilu bilmudbirati wa yucridu can ilmuqbila aad baan ula yaabsanahay buuhi qofka bani aadamkii adduunyadan jooga cuudkiisa iyo xoolihiisu markay naaqusaan wuu warwaraa buuhi qofku laakiin cimrigiisu markuu naaquso ma warwaraa waa dhab weeye iminka haddaad xisaabtanto sanadkii oo aada faa'iido weydo raasamaalkiina dhinmaba madaxuu qofku qabsanayaa habeenaanu seexanayninba laakiin cimrigan barbar socda ee tegaya ma ka murugoonayo cimrigaana xaasil ahaa noloshiisi ahaaye ogow ila cuudka waa laga kabi karaaye cimriga cidina kama kabi karto ayaamaha iyo sanadaha ayaa kuu soo celinaya xoolaha waa lagu soo celin karaa qaar baaba kuu goynaya qaar baa kugu caawinaya dib baad u macaashaysa waxaa wax lala yaabaa buuhi adduunyadu inay tahay mudbira waa xigmado way sii socotaa way tegaysa aakhiraduna waa muqbila way soo socotaa bal hadda qofkii wuxuu isku mashquulinayaa u ordayaa middii sii jeeday midda soo jeedee lama huraanka ana wuu ka sii jeedaa buuli waa wax u baahan inaynu isdul taagno aynu aada ugu fiirsanno waxaana la idhaahdaa maca alyawmi alghad maanta waxa weheliyaa waa berri kullu aatin qariib wax kastoo soo socdaaba uu dhow yahay axadu zuhaad raggii zaahidiinta ahaa ee hadalladoodii xigmadda ay ahaayeen waxaa ka mid ahaa isaguna imaam aimada ka mid aho waxa uu lahaa kunuu min allahi calaa xadar wa min diinikum wa min dunyaakum calaa khatar wa min almowti calaa wajil waliquduumi alaakhirati calaa cajal waa hadal waana ah oo isku habaysan oo masjuucah ilaahay xaggiisa ka feejignaada buui khatarta adduunyadana ka feejignaada imaatinka geeridana ka feejignaada degdega aakhirana u diyaargaroobaha ilaawina laba ninoo raggii cibaadaysan jiray ka mida ninka macruuf la ydhaa iyo maxamed ibnu abi towba ayaa salaad bay tukanayeenoo waar maxamedow ina tuki buu ihi macruuf dadkiibuu waaniyo wuxuu ihi salluu salaata almuwadic waxaa laga yaabaa salaadan kadibba inaanan idi tukinin ama aynaan tukaninba macruuf baa u jawaabo wuxuu ihi amalkaagi iyo yididiiladaaduba way dheeryihin haddaad salaado dambe ku fikirayso waxaaba laga yaabaa salaadan dhexdeedaba inaynu ku dhimanno qaar sujuudda ku dhintayna dee la arag markaasaa wuxuu leeyahay nacuudu billaahi min tuuli اlamal fainahu yamnacu khayra alcamal ilaahay baanu ka magangalay yididiiladaa dheera adiga ku haysa oo camalka khayrka badan dadka u diida xaatim ah isaguna ahaa nin cibaado badan waxa uu leeyahay waa xikmadahaynu ka dhaxalay maa min sabaaxin ilaa washaydaanu yaquul waa kastoo barya shaydaanku qofka bani aadamkaa wuxuu ku leeyahay maa taakulu wamaa talbasu wa ayna taskun bal maxaad dhar xidhan maxaad cuni doonta maxaad dhar xidhan halkeed geli doonta dharkii iyo dhuunigii iyo gurigii mee dalow intani ma sii soconaysaa miyay dhammaanaysa intan maad iska dhigan waxba ha sadaqaysanine waxaasuu akhriyayaa buuhi qof walba dhegta ugu hayaa dowladdu dhegta ugu hayaa qofku dhegta ugu hayaa qoysku dhegta ugu hayaa waxaba la isku haystaaba waa intanu anigu laakiin markaan u jawaabaya waxaan idhahaa buuli aakulu lmowta wa albasu lkafana wa askunu lqabr geeridaan cuni doonaa dharka kafantana waan xidhan doonaa guriga qabrigana waan seexan haba iska aamuso shaydaanka nacaska waxa uu lahaa mar kale raximahu llah ilzam mawlaaka ta'tika dunyaa raaqima waljannatu caashiqa anigu waxaan kugu waanin lahaa qof iyo muslimka ahi ilaahay ka fogaanina ka agdhowow adduunyaduna iyadoo kuu heelan ayuu ilaahay kuu soo ururin doonaa jannaduna way kuu iman caashiqa iyadoo adiga ku jecel marka walaalayaal waxaynu isku waaninaynaa
waynu iska shaqaysanaynaa waa dadaalaynaa istiraatiijiyadahana waynu wadanaynaa laakiin safarkani waa mid lama filaana aan lagu ogeysiinaynina aynu iska diyaar garowno aynu sahayna u qaadanno cibaadada noocyadeeda kala duwan macaasida iyo dunuubta iyo gafafka cibaadada inaga duminaya inaga deerifaynaya inaan iska